السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي سو دوادا meel kasto aad dunidaad ka joogtaan kuna soo dhawaada wararkii ugu waaweynaa ciyaaraha saaxiibayaal waxaan eegi doonaa kulanka Manchester United ay burbursatay Sharif ayaan saaxiib eegi doonaa laacibka Cristiano Ronaldo oo goolkiisii la yimid asagoo si aad iyo aad ugu baahnaa maadaama kulamadii la soo dhaafay ama dhammaan koobka ciyaarihii laacibka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo uu wax gool oo ka dhalin golkana muhiim ayuu ahaa saaxiibayaal haddii aad tahay saaxiibka cusub barteenan fadlan subscribe noo saar waan ku mahadsantahay saaxiib la jaanqadkaaga kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa kulankii labaad ee Euroleague waxay la leeshay Sharif iyadoo away ahayd waxayna ka soo gaadhay guul raaxo leh guul aan dhib badnayn guul raaxo ay ka soo gaadhay kooxda kubadda cagta Manchester United kulankan ayaa waxa uu muhiim u ahaa inta baraha iyo laacibka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo oo kulanka ku soo bilowmay waxaana uu dhaliyay goolkiisii koowaad tan iyo 20 sano ka hor markii uu joogay wadankiisa Portugal laacibkan ayaa waxa uu 17 sano ka maqnaa Euroleague waagaas ayaan ugu dambeysay inuu dheelo koobkan laakiin bilowga Euroleague waxa uu ku bilowmay ciyaar xumo maadaama koobkan uusan laacibkan la qabsan waqti badanna uu ka soo maqnaa waxaan ku bilownay siliidata horyaalka Premier League iyo Euroleague ay dhaliso kooxda kubadda cagta Manchester United ee ku dhashay garoonka Old Trafford marka saaxiibayaal kulankan waxa uu ahaa kulan mar walba ay cadayska ama buuni ay maamuleysay kooxda Manchester United kooxda kale ee yarta ah oo ay ku jiray difaaca mar walbana kooxda waxa weeraraysay ama isku daysay in gool dhaliso waxa ahayd naadiga shaadinta ascas ee Manchester United kulankan waxaad moodaysaa in Cristiano Ronaldo uu ismuujiyay hal gool ayuu dhaliyay laacibka lagu magacaabo Cristiano waana goolkiisii koobaad ee xagaagan horyaalka xakama dhalin Euroleague xakama dhalin waa goolkiisii koobaad oo u baahnaa maadaama laacibkan aan laga baran in kulmada uu dheelo uusan gool dhalin laga baran laakiin waxa moodaysaa Manchester inay barayso in laacibkan uu macnaha dib dhac ama hoos dhac uu ku yimid maadaama kulan walba oo Cristiano Ronaldo uu dheelo asagoo afka buuraya asagoo xanaaqsan asagoo balbulation ku furan tahay problem ku furan yahay inuu ka baxo garoonka laakiin waxa moodaysaa kulankii xalay inuu khaas u ahaa in goolkiisii koobaad ee xagaagan u yimid laacibka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo loo maleynayo in sanadkan uu kabta iyo wax isku dayi karo maadaama laacib badan ay ka gool badan yihiin laacibka hadda hogaaminaya waa Erling Haaland ee u dhalay Manchester City marka saaxiibayaal kulanka waa soo gagoobay Manchesterna waxay ku soo laabatay Manchesterteedii waxaan ogeyn in Manchester United bilowga horyaalka Premier League ay ku bilaabatay saansaan aad u liidata maadaama labadii kulan ay ugu horeysay laga raayay laakiin waxa moodaysaa in dib ka soo kabatay markii naadiga lagu magacaabo Liverpool iyo Arsenal ay dhagaha ku dhufatay ayuu ku soo boqday garoonkooda Old Trafford markii la arkay Arsenal iyo Liverpool ay kala daray Manchester waxa loo maleeyay in Manchester ay soo laabatay laakiin kulamadii Euroleague ay ku fashilantay kooxda ku dhashay Old Trafford marka saaxiibayaal Manchester waa soo laabatay Arsenalna waxay ka jabsay score oo ahaa inay abintin ku ahayd 5 kulan ee la soo dhaafay ee la dheelay horyaalka Premier League laakiin waxa moodaysaa inay gaashaanka u durday naadiga Manchester United kulankii Liverpool oo wax badan ka sameysay maadaama ay weyn aan laga filayn soo badhigtay kooxda ku dhashay Old Trafford marka kulankan wax moodaysaa Euroleague-na inay ku bilaabatay kulankeeda ugu horeysay dhibcaha in laga badiyay ayuu joogta gurigooda laakiin kulankii labaad ee cagta labaad ee gurubyada Euroleague waxa moodaysaa in Manchester United ay dib ka soo kabanayso boonigooda isoo raacay marka waxa la qiyaasayaa koob walba ay leeso Manchester xagaagan inay kulmada ugu horeysa ay kufto ama ay la kulanto caqabado waaweyn laakiin dib ay ka soo kabato marka saaxiibayaal Manchester waa soo laabatay wax qoyay sida moodin laakiin dad badan waxay dhahaan Manchester waa Manchester kulan waa reynaysa kulan waa laga reynayaa kulan soo ayaama joogaysa waa laga reynayaa saas Manchester waa lagu yaqaanaa iyo kooxda kubadda cagta iyo Arsenal saas waa lagu yaqaanaa haddii aad tahay saaxiib weli la soo jooga fadlan subscribe noo saar waan ku mahadsantiin saaxiib la jaanqadkiina